madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo weheliyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici hortooda waxa lagu dhaariyay xubnaha cusub ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana dhaariyay wasiirada cusub ee xukuumadda madaxweyne Biixi gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga ee jamhuuriyadda Soomaaliland Professor Aadan Xaaji Cali Axmed waxaan ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta islaamka dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo dhaartan golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ah mid u astaynaya dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 129 oo qeexaya dhaarinta qof kasta oo mas'uuliyad qaran haya oo ay ku waajibtay in loo dhaariyo xilka uu qaranka mas'uulka uga yahay taas oo uu astaynayo xeer ama dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland